MyRemit waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemit waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa taleefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale taleefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store. ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo aynu ku waraysan doono ehelada fanaanka caanka ee Omar. In badan ayaa tiraahdeen warkiisa oo sugan ha naloo keeno. waxaan la soo xiriiray mas'uuliyiin ka tirsan eheladiisa oo aanu jecelnahay inaanu su'aalo ka weydiino oo habeen iyo maalin isbitaalka la joogay isla mar ahaantaasna ah dadka gaarka ee loo ogol yahay inay soo arkaan xaaladiisa la socdaan. Cabdulaahi Cusmaan iyo weliba Maxamed Najax oo nin caan ah ayaa isla jooga haatan Norway ay ku sugan yihiin. Cabdulaahi, haddaan adiga kugu soo horeeyo marka hore maxaad isku tihiin fanaanka? Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka waa horta Cabdi Xafid ku salaamaya. marka labaad ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waa salaamaya. Omar waxa weeye waxaan ahay ilma adeer. waxaan ahaa ninkii uu dalbanayay u dhahay Cabdullaahi Xarfow iga soo gaar oo dadku wada maqleen. marka waa nin adeerkay waana nin asxaab nahay. marka dadka ugu dhow xaaladiisa waana ka mid ahay. dadkii khaaska ahaa ama shakhsiyaadkii khaaska ah ee gudaha galay waana ka mid ahaa oo xaaladiisa saxda ogaa. intaana Maxamed Imaan waxaan la socdaa inaad dhawaan ka soo noqotay. waa run maanta ismaan arag Igraan baa laba jir gudaha gashay laakiin shalay darab gudahan ku jiray waa is aragnay. waa maanta xaaladiisu haddaa rabtid aan kuu soo koobo. waa u soo jeestaa waxaan rabaa Maxamed laftiisa inaan soo dhaweeyo salaamo. ikaadi Maxamed waa soo dhaweynayaa. adi laftigaagu xoogaal baa tahay goobtii ayaa tagtay. saaxiib korna waa tihiin qaraabana waa tihiin saaxiib dhowna waa tihiin qaraabana waa tihiin soo dhawow. aad baa u mahadsantahay. magacay waa Maxamed Najax Xuseen. sida aad sheegtay Omar waa fanaan Soomaaliyeed. waa fanaan noogu imaaday si uu noola xuso xuskii maaragtay kowda luulyo maalinka xorriyadda qaatay Soomaaliya. maalinkuu noo imaaday dadkii kusoo dhaweeyey Oslo ayaan ka mid ahaa. maalintii ilaa maantana xaaladiisa iyo kor iyo hoosba og. marka maanta iyo shalay iyo daraad mar walba waa booqanaynay laakiin nasiib xumo dadkoo dhan uma gali karaan meesha uu ku jiro. keliya dadka uu dalbado oo gabadha naadirtiisa ay ka mid tahay yaa u gali kara iyo Cabdulaahi. marka wakaas waayahay. Cabdulaahi, haddaan dib kuugu soo noqdo fiidiyaashii u horreysay ninkii uu baadi goobayo lahaa hala iigu yeeraad ahayd muxuu dadka kaaga xigsado kuugu yeeranay? wallaahi kolay arrintaas ma garanayo laakiin dad badan familka waa jira magaalada jooga laakiin waxay la tahay maalin laba beri kadib isagaa su-aashaas kaaga jawaabi doonaa Cabdixaafid. waayahay. dabcan waad ii sheegtay taleefonka haddii ilaha yidhahdeen nagu soo xiriirin doontaan oo asagoo afkiisa nagula hadli doono laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan ilaahay nooga baryana inuu caafimaad tamaama siiyo uu sidiisii hore iyo si ka fiican buu kusoo noqdo. bal xaaladiisa haddii aan wax kaa weydiiyo Cabdulaahiyow iyo Maxamed labadiinuba insha allah si talantaaliya. Cabdulaahi, maxaynu kala soconnaa xaaladiisa markii u horreysay uu Noorye yimid? Maxamed cabdiqaadir oo ka waraystay nin farxadaysan oo waxba aan qabinin isagoo ah inuu noo yimid buu noo sheegay si hufan buu uga hadlay. maxaad intaas noogu dari kartaa? bal dib noo yara celi wax yar. wallaahi Cabdixafidow horta anigu imaansihiisii waa ogaa waa run waa daawaday. inkastoo habeenkii kowda luulyo aanu wax yar is aragnay kabacdina safar yar baan galay. waxa ii xigtay habeenkii dhaweedoo galabtii dhaweedoo uu live ku jiray oo soo galay. marka runtii haddaan dhaho waxbaan ka sheegayaa wixii dhacay intaa u dhexaysay been baan sheegayaa ma rabo inaan been ka sheego. laakiin xaaladiisa caafimaadka uuna hadda say tahay iyo labada beri u dambeysay iyo saddex beri u dambeysay say isu bedelaysay baan kaaga warrami karaa. waayahay. waa gartay waa kaaga mahad celinayaa.
sweden markii uu aaday intuusan sweden aadin wuu wanaagsanaa xaaladiisu okay bay ahayd sweden markuu ka soo noqday oo mushkilaad kale bilowda fikirkaas ma qabtaa adigu idinku ma qabtaan mise ma qabtaan wallaahi hadda waqtigan asaga inaan su-aashaas uga jawaabo waa fiican because anigu waxaan ku wareeray isagoo life ku jira ma garatay laakiin wax baaritaankeedana ay wadaan kuwan amniga iyo dowladda ay wadaan marka ma fiicna laga ka hor dhacna family ahaan waa kugu ixtiraama ra'yiga maxamed soo dhowow maxaa ku daraysaa intaas aad baa mahadsan tahay waa dhoway mar labaad Omar intii uu nala joogo asla horta wiilaa waqti badan isla qaadanay buu ahaa fiidiyoyadii cadaymihii waxa dhan wax ku jiraan tiktokayga iyo kiisaba ani iyo xaaskayga nima xabiba waa waqti waan wada qaadan anagoo badan laakiin waxaa noogu war dambeysay inuu Sweden aaday 20 bishan hadda aan ku jirno July kadibna soo laabashadiisii oo isla ku soo laabtay isla habeen ku soo laabtay aroornimadeediina aan live ka arkay muddadu Sweden ku maqnaan oo nagala ballamay inuu halka xaflad ku qaban doono xafladaasna ma garan karo wax ku baaqatay kulay laakiin inuu soo laabtay habeennimadii snapchat-kiisan ka arkay inuu habeenkii shaqaynayay aroornimadiina isagoo live ku jira ayaan arkay aroornimadii aan dhihin meelaha duhurkii markii ku dhaweyd ayaa la ii sheegay loo yiri Omar live ku jira maadaama habeenkii shaqaynay gelinka hore waan hurday maalintaas marka sidaas live-kii uu ku jiray meesha dadkii u tagay qofkii u horeeyay baan ahaa waaya haddii aynu haatan u guda galno dulucda barnaamijkeena qof kasta oo Soomaali ah waxa ay dadku doonayaan inay ogaadaan xaaladiisa rasmiga ah ee ku saabsan caafimaadkiisu meeshuu marayo riboorada dhakhaatiirtu idin siiyeen markaad u tagteen waxaad kala kulanteen bal Cabdulaahiyow maalintii meesha uu hadda ku jira la geeyey iyo haatan markaad fiirisid bal sawir guud naga sii dareenkiisu siduu yahay xaaladiisu siday tahay soo dhowow cabdixaafid shalay iyo maanta markaa u fiirisid maantaba kasii fiicnaa oo caadi uu kaftamayay oo hadlayay waad dareemaysaa in hadalladiisi iyo caadigaadi kaftanka siiyay inuu soo laabanayo aad buu fiican yahay oo ehelkii qaar uu familka uu ku weydiinayay uu dhahayay hebel iyo hebel iyo heblaayo iga warramay igu salaama marka waqti aan fogeyn cabdixaafid insha allah saa rajaynayna waa kula hadli doonaa waa gartay haddii aynu dhinaca kale ka eegno waxaan la socdaa inaad dhakhaatiirtu ay doonayaan inuu nasto taleefonkan iyo livekan uu ka baxo muhiimad intee leeg bay arrintaas u leedahay cabdixaafid aad bay muhiim u tahay taleefonka horta annagaa marka horeba codsannay ugu horreysay in taleefonka uu damiyo oo uu dhigo laakiin sharciga waddankan baa baan diidaynin in muxaa qofka hadduusan xaaladda khatar ku jirin in la siiyo oo hadlaya in la siin karo ma garatay saas laba jeer uu live ku soo galay laakiin markii ugu horreysay isbitaalka la geeyey baa u sheegnay wax ku dhahnay taleefonka ka xareeya because ninkan annagoo kale iska private maahan waa nin iska public intaas kuna qofaa soo wacaysa marka halka mar uu live soo galana malaayiin baa daawanaysa marka dhakhaatiirta iyo marka dambe aan wada hadalnay iyo familka waxay noo caddeeyeen inaan ku saxsanayn ay ku habboon tahay inuu ka nasto telefoonka iyo social mediahan waxa inuu ka nasto buuq badan kusii furaayo marka xalay uu nastay shalay waxaad dareemaysaa isbeddelka weyn oo jir ahaan iyo nooc kasta baad ka dareemaysaa markuu noola hadlayay maanta marka waxaan rajaynaynaa walaal waqti aan fogeyna inuu dadka Soomaaliyeed oo ka walwalaya oo tirada badan malaayiinta qaarna soo wacayaan qaarna soo ka hadlayaan insha Allah waqti aan fogeyn isaga la hadli doono duu Ilaahay yiraahdo dadkaas malaayiinta ka walwalsan waxaa dabcan ku hoos jira in yaroo fara ku tirisa oo eraya xaraf leh waxyaalo aan habboonayn waxyaalo markaa shakhsiyadiisa duraya idinkii laftigiini family baatiin idin dhibaya oranaya maxaad ku oran lahaydeen labadiinu maxamed soo dhow aad waa mahadsan tahay da bulshada waxaan u sheegi lahayn kulley waa wiilkoodii waa fanaankoodii waa wiil ay jeclaayeen oo bilaa xanaf ahaa hadda ay u soo duceeyaan oo qofku markii uu xoogaa maaragtay xaaladihiisu ayna fiicnayn waxa wanaagsan in khayr loo rajeeyo loo duceeyaa wanaagsan
ma ahan in wax kale oo qaldan laga raadiyo ma aha waxaan u sheegaynaa keliya wiilkaas inuu fiican yahay caafimaadkiisu marna ka dambaysa fiicnaanayo haddee wax dhibaato oo lagu sheeganayo ilaa hadda ayna jirin nasasho bisa laga rabo inuu nasto waayahay cabdulaahi arrinta socdaalkiisii inuu dib Canada ugu noqdo miyaa qorshahaas inuu socday baan mar maqlay dadka qaar waxay leeyihiin maye waxaa loo wadaa dalkii hooyo oo nasiino iyo baan iyo quraan saar iyo ah dhinaca safarka maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi kolley ka family ahaan ma rabno inaan hadda meeshan ka shaacayo ma rabo waxaan go'aan lagu wada gaarin laakiin haddii hawlihiisa xaggan caafimaadka marka hadda dhammaadaan dhowrka casho soo socota waa u baxaya insha allahu laakiin meesha uu u baxayo waa arrin waxa weeye hoos oo khaaso familka u taal laakiin intuusan bixin baa cabdi xaafid uu kula hadli doonaa insha allah waayahay gabagabadii iyo gulaaladkii maxaad ugu baaqaysaan bulshada Soomaaliyeed adigu Cabdulaahi Maxamed uu yiri intiisii maxaad ugu baaqaysaan markaas baraha bulshada qaarkood doonayaan in ay markaas ay ku helaan sumcad ama click waxa la yiraahdo muuqaaladooda lagu daawado markaas wax allaale iyo wixii dibnahooda ku soo dhaca ayagoon ka fiirsan laga yaabo qaarkood inaysan xog haynin qaarkood aan kala jeclayn dhibaatada ay u geysanayaan asaga iyo eheladiisa iyo taageerayaashiisaba maxaad ku oran lahayd cabdi xaafid ma santahay ka family ahaan annaga waxaan runtii jeclaan lahayn waxyaabaha qaarkood oo ay lagu raadinayo magaca iyo viewga lagu raadinayo in laga xishoodo waa ninkan waa fanaan Soomaaliyeed oo dad badan ay ka walwalayaan jecel yihiin laakiin dad baa si khaldan u turjumaya waxyaabaha qaarkood baan aragnay waa arkay dadka waxyaabo badan la soo diray fiidyo badan la soo diray dadka ay macluumaadka ka bixinayaan marka waxaan jeclaan lahayn inta xaaladiisu caadi ku soo noqonayso oo isagu la hadli doono ummadda Soomaaliyeed in la xusmeeyo muxuu familka iyo codsigooda oo laga waanto waxyaabaha qaarkood inay u soo duceeyaan waxaan leenahay inta kaloo wanaag ka shaqeynayso na soo wacaysan waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin waan ognahay jazakallahu khayr dadwaan kaloo magacaada si khaldan u isticmaalayaan iyaga laftigoodana waa ognahay insha Allah mar kale ka jawaabi doonaa daawadayaal waxaa xusid mudan cid caafimaadka la dhalatay inaysan jirinin haddaad caafimaad qabtid aadna markaas dad inaad ku dulmisid ama qof ku dulmisid ama ku dhibaataysid aad doonaysid ogow cid la dhalatay ma jirto maalinba bawdo rageed maalinba mid baa qaawan maanta mid baa isbitaal yaalla berita aniga adiga ku xigna marka waxay ku habboon tahay akhlaaqdeena iyo diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan inaan waardiyeyno maanta Omar wuxuu noogaga baahan yahay inaynu markaanu tukanayno ilaahay u barino inuu ilaahay caafimaad ballaaran siiyo uuna sugo waxa ugu muhiimsan waa intaas oo keliya hadaadan intaas oran karinin inaad ka aamustid waadan dhibaatadiisa ka qayb qaadanin adugu maadan jeclaan lahayn dhibaatadiisa inaad ka qayb qaadatid oo ehelkiisa aadan daqrinin oo ereyo xanaf la aadan oranin odayaasha labadiina waa idiin mahad celinayaa daawadayaasha insha allahu tacaala koley Omar sida odayaashu ay sheegaan ba halkan ayuu kasoo hadli doonaa sida la rajaynaya haddii ilaahay yidhaahdo wixii kusoo kordha xaaladiisa waa idinla socodsiinaynaa inta ka horreysa ninkii waa soo caafimaadayaa isbeddel baa ka muuqda maalinba maalinta ka dambeysa maalin lowna insha allahu tacaala isagoo ka boodo ordaya ayaanu arki doonaa labadiinuba odayaasha waa mahadsantihiin daawadayaal idinkuna waa mahadsantihiin intaan kanoo kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal guul iyo gobonnimo nabadgelyo